maanta oo taariikhdu tahay 14 bishii lixaad 2021 maanta oo taariikhdu tahay 14 bishii lixaad 2021 waxaan maanta kormeer ku soo sameynay goobaha degmada Afgooye ka tirsan tahay danta guud waxaan soo aragnay dhul hadda oo danta guud ah oo garoomo sportina ku dhinac yaalo oo la rabo dib in loo dhisto wixii hore loo soo dhistay ayaa rabnaa inaan suulino dadna waxay wadaan wax cusub inay dhisaan taas ma u dul qaadan karno annaga maamulka degmada Afgooye annagoo ah wada jir ah waxaan horta dhammaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wasiirkeena arrimaha gudaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo ku-xigeenadiisa waxaan leeyahay degmada Afgooye dhulkii danta guud ahaa qaarna dad baa degan qaarna dad baa dhisan rabo maanta wixii ka bilowdo cidii dhul dan guud ah lagu dhax arko talaabo sharci waafaqsan laga qaadaa wax ugu soo horeeyay oo hadda aan ugu digayno iskoolkii dugsiga hoose dhexe ee degmada Afgooye dadka degan walaalaheeno saaxiibadeeno dadkeeno oo mas'uulka aan ka nahay waxaan u sheegaynaa cid allaale cidii dugsiga iskoolka dugsiga hoose degan waa loo baahan yahay wasaaradda waxbarashada u baahan in arday wax lagu baraa la rabaa ardaydeena iskool lacag lagu dhiibaa ayay dhigtaan waxaan rabnaa si taas u bacdo iskool lacag la'aan ah macallimiintooda ay mushaar qaadanayaan ayaa Afgooye diyaar u ah haddii iskoolkaas la baneeyo dadweynaha marka waxaan u sheegaynaa ilmahooda wax lagu baraa waxaan jeclahay meeshii kale oo ay degi karaan ha degaan muddo 7 maalmood ah ayaan u qabanay insha Allah mar dhowna meesha waa soo booqan doonaa waa tagaynaa waxaan soo arkaynaa tirada qof oo degan inay ka guuraan meesha waa awiiso waa maalintii ugu horeysay oo aan u sheegno dadweynaha degmada Afgooye wadooyinka sida qaldan loo dhistay intaba waa burburinaynaa cidaan anaga lug u celinayna ama u joogsanayna ma jirto wixii degmada oo dan guud ah waa la banaynaa tuti jidka isgooska ka bilow ilaa suuqa ku tago ilaa ay dugsi sare ku tago intaba qof allaala qofkii jidka degan oo dhistay waa inuu baneeyaa jidkaas annaga waxaan samayn rabnaa wadadaas inaan cari tuurnaan rabnaa carakaabo ku shubno soo hagaajino waxaan rabaa busteejadii hore ee baabuurta laga rici jiri in la helo waxaan lagu helaa nadaafadii aan kasoo shaqeyn webigii aan kasoo shaqeyn waa soo dhammaatay waxaan rabnaa hadda inaan ka shaqeyn in wadda cariiri ah waxaa dhici kara dab wax kasta qabsan kara magaalada meel laga soo galaayo malaa waa xiran tahay waxaasoo dhan inay banaanaataan rabnaa busteejadii hore ee baabuurta lagu rici jiri inaan arkaan rabaa aan istaago meesha ka dhex qudbeeyo iyo teleefoonkii dowladda siyaad bare oo lagu qudbeyn jiri banaanka inuu soo baxaa hadda gaadiidka wax laga rabaa laamiga dhexdiisa cid alaale cidii degan waxaan u sheegaynaa goobaha aan soo sheegay waa inay baneeyaan annagana ciidamadeena dowladda hoose aan usoo diraynaa waa la soo calaamaynaa haddii amarka aan bixinin dhagaha fur laga gashto makiinaan keensanaynaa maalin cadaan ka jijibinaynaa cidaan u joojinayna mala awoodeeno iyo sharci annagoo wadano ayaan ku burburinaynaa ciddii is hor istaag samaysana sharcigaan la tiigsanaynaa waana mahadsantiin wabilaahi tawfiiq